والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد. mahad walbana alle subxaana wa tacaala ay u sugnaatay. allaha subxaana wa tacaala awoodana siiyey inaan ku kulanno halkan maanta. allaha subxaana wa tacaala qaadirka ah, khaaliqa ah, na abuurtay, na doortay inaan muslimiin nahay maanta. awood aan leenahay ma aha, iimaankeena oo xoog badan ma aha, laakiin ilaahay subxaana wa tacaala baa islaamnimadana la doortay. dadka badankood maanta inta adduunka joogto islaam ma aha. kuwa waxaa laga yaabaa abka aan muslimiin ahayn. annagu alxamdulilah ilaahay wuxuu naga dhigay ummad muslim ah. marka islaamnimadaa in lagu mahadiyo alle subxaanahu wa tacaala oo lagu camalfalo ayaa loo baahan yahay. cinwaankasuu sheegay weeye taqwada guud in la isbaraarujiyo, laakiin si khaas ah waxay u ahaan doontaa, ama cinwaanku wuxuu ahaan doonaa tajdiidu liimaan, iimaanka in la cusboonaysiiyo. bisha ramadaan baa nagu soo dhow iyo bisha shacbaan aan ku jirno oo bil fadli badan ah. waxaa loo baahan yahay qofka muslimka ah oo naasixan linafsi inuu ahaado. qofka muslimka in naftiisa u nasteexayo marka hore, uu isxisaabiyo, uu dib iskugu noqdo, uu yidhaha war baryahan anigu iimaankayga ka waran, war xaalkayga anigu siduu yahay, hal iimaanii fii namaa'in wa quwatin wa ziyaada, iimaankayga ma kobcayaa oo awood ma leeyahay oo baryahan ma soo xoogaysanayaa, mise wuu sii daciifayaa oo wuu sii dhammaanayaa. waxyaalo badan baa jira oo iimaanka kobciya, waxyaalo badanna iimaanku waxaa weeye daciifiyaan oo hoos bay u dhigaan. nebiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waxaa ka sugan xadiidka alxaakim uu soo warinayo inuu yidhi nebiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh ina aliimaana la yukhlaqu fii jawfi axadikum kamaa yakhluqu athawbu fas'alu allaha an yujadida aliimaana fii quluubikum. ina aliimaana la yakhlaqu fii jawfi axadikum. iimaanku wuxuu ugu baabacayaa fii jawfi axadikum kamaa yakhlaqu athawb, sida marada ay u baaba'do markii meel la geliyo, ama qofka marka uu gashto marada see u baaba'do ayuu iimaankana u dhammaadaa. ee fas'alu allaha an yujadida aliimaana fii quluubikum. ilaahay waxaa weydiisataan inuu iimaanka cusboonaysiiyo fii quluubikum, quluubtiina ku cusboonaysiiyo. marka waxyaabo badan ayaa jiro oo iimaanka qofka ka leexinayo qalbigiisa oo dacfi ku ridaayo. sidaa daraaddeed buu wuxuu nebigana amrayaa an yujadida aliimaana fii quluubikum, ilaahay inaan ka barino in iimaanka uu ku cusboonaysiiyo quluubteena. alle subxaana wa tacaala wuxuu yidhi yuthabitu allahu aladiina aamanuu bilqowli athaabiti fi lxayaati addunya wa fi laakhira. sugi kuwa rumeeyey bilqowli athaabit, qowlka sugan oo laa ilaaha ila allah ayuu ku sugi, oo khayrka ayuu sugi. walaa budda min jihaadi nafs wa muxaasabatiha. naftana waxaa weeyey in lala jihaaday u baahan tahay oo la xisaabiyo oo dib loogu noqdo. alle subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. كوا هالجمي وأنا وردنا يا طريقنا كوا هالجمي الدين لنهدينهم سبلنا وحانكوها من دورنا طريقنا ونكسن وإن الله ألا لمع المحسنين. كوا سمفرياش ونكسن ما وضع أي أحدين. مكأن سبحانه وتعالى وحو عاوياه oo jidka waxaa weeye khayrka ku toosiyaa qofka dadaala oo ilaahu barya alle subxaana wa tacaala, allow jidka toosan igu sug, allow fitanta iga ilaali, allow naarta iga badbaadi, allow ubadkayga waxaa weeye khayr ka dhig, ubadkayga qur-aanka iyo diinta ku sug. qofkii dadaala oo diinta ku dadaala alle subxaana wa tacaala waa hanuunin. waayo waxaa loo baahan yahay hanuun, waxaa loo baahan yahay iimaanka in la cusboonaysiiyo, waxaa loo baahan yahay alle subxaana wa tacaala in la ajiibo. alle subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu istajiibuu lillahi walirasuuli idaa dacaakum limaa yuxyiikum. kuwiina iimaanka laga helow istajiibuu lillahi walirasuul,
إلهي يرسول كيس أجيبا إذا دعاكم قرتين يران لما يحييكم وحائد النولية وحائد النولية وإيمانك وحائد النولية ودينك وحائد النولية وخيرك إلهي سبحانه وتعالى يرسول كيس دين يران وحائد النولية هي إذن كنا دلالة أو وحاوي أجيبا أو خيرك وحاوي كل دلالة أيها الله سبحانه وتعالى نديه معنى وحاوي نولش الدنيا ذا يتن آخرة وحي كجرتا إن الله سبحانه وتعالى عبيده إن حمانت لغا فغادو إن منكرك لغا فغادو إن شرك لغا فغادو إيمانك وحاوي إن إسحسوسيه أو وحاوي قفك ولا قبضنا ولا شيء تراور إيمانك نبريها وعد ماذا أنا إسحسوسينه والمحاضرة فلان أن تغنو قولي مكان جغنو والمحاضرة الشيخ الله قلتو والقرآن كان لغي سنو يعني تذكروا حلول باهي قلبي قوضي إنا جلعيان وهذا إيمان كان وحاوئي كد دالان إنه إيمان كعصوان الله خليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصحابتي سبك الصاحبين سعوا كل يجري هلموا نزداد إيمانا وكاليا إيمانكم أنزياد سنة وفي لفظ كالوحوها قم بنا نزداد إيمانا وحكيري من أصحابتي سكمل ورمكان كالي استاج نزداد إيمانا إيمان أنزياد سنة يعني إيمانك أنزياد سنة كالي أن أسحسوا سنة أيها أصحاب رسول الله أيه وحي إسحسوا سنة يعني إيمانك إنا إزياد سنة عبد الله بن مسعود أسلم حورنا يا اجلسوا بنا نزداد إيمان وكالي أن وضفري سنة حولها إيمانك إنا أنزياد سنة إيمان دعالي سنة وحكم الآن اللهم زدني إيمانا ويقينا وفقها إله إيمانك زيادة أو يقين تيدا زيادة أو فقه فهم كي أن دين تفهم زيادة معاذ بن جبل سوح ورنا يا اجلسوا بنا نؤمن ساعة وكالينا لفر يستا ساعة أنا الله سبحانه وتعالى الرمين عبد الله بن رواحة وحوليه تعالوا نؤمن ساعة كاليا ساعة أن رمين فلنذكر الله إله سبحانه وتعالى أن حسنه فنزدد إيمانا بطاعته إيمان كأن زياد سنة طاعة الله سبحانه وتعالى أن وداعينه لعله يذكرنا بمغفرته وحال غياب الله سبحانه وتعالى إنه مغفرتي سيد بالأفكي سنغنا لحسسته ونوضا بالأفو ومالها سان أوكال مركز كوي ماذو وضكو حافظة وددقن أو خيرك وضا جعل انت مسايدكو سيدا أو إماضان عرورتو صوك حيان رد الدمر بالصوفر يستان إلهي سبحانه وتعالى كلامك اللي يستان أحاديث النبي صلوات ربي والسلام عليه اللي يستان إلهي تتكاسي إيمانك ذوكم عنايا وانا أدم بالهفايا بل إلهي سبحانه وتعالى عليه ملائكة سياحين ملائك بوليه يا الله سبحانه وتعالى ملائك تسوى ملائك وريكته ساسة وريكسا مقالدو markay wareegtay ayay ku soo noqonaysaa ama waxay arkaysaa dad sida u fadhiya masaajidkan oo kale arkaysaa markaas soo fariisanaysaa markaas dadkan oo dhan waxa weey dambiilaaf Allah subhanahu wa ta'ala u weydiinaysaa malaa'iktu ayaa ilaahay subhanahu wa ta'ala waxay leedahay allow dadkaasi waxay meesha u kulmeen adigu darta ayay u kulmeen allow dadkaasi waxa weeye u dambiilaaf malaa'ikti Allah subhanahu wa ta'ala dambiilaaf ku weydiinaysa لكن وقورت مركا أديقو دداشد وي ومركا أديقو دكسيغا أديد أو أترابي القرآن كأن برتو ومركا أديقو وحاوي دداشد أو عروت هذا دكسيغا أديقو دداشد ومركا دداشد أديقو أو أد حارانت إسكا إلى ليسد منكر إسكا إلى ليسد حمانت أد إلى ليسد وحاصلنا وحي أباهيهم جهدي يدلال أي أباهيهم أبو الدرداء وحورنجري من فقه العبد أن يعلم أمزداد هو أم منتقص أدونك فهنك سفيعا وحاكم إنو كلاقرتو أمزداد هو أم منتقص ممد زياد سايا إيمان كيسا وزيادة يومية مسوى مد إيمان كيسا نسقامايو هذا هو تسأكتها بريان هذه صلاة بريان كاتيغيسو إيمان كذا إنو نسقامايو هذه حنت هذا بابته إيمان كذا إنه نسقامايو هذه حجاب كي أقادن جرت أطورته إيمان كذا إنه نسقامايو ومن فقه العبد أن يعلم نزغات الشيطان أن تأتيه فقه
fahanka wanaagsan adoonka iyo gabadha muslimada ah waxa weeye an ya'lama nazaqaati shaytaan adoonka inuu ogaado shaytaanka meeluhu ka soo galo qof kastoo anaga naga mid ah meel buu jilicsan yahay marka waxa wanaagsan qofka inuu ogaado war anigu meesha baan u jilicsanahay anigu munkarka u jilicsanahay anigu indhahayga laabi kari maayo xagga waan u jilicsanahay oo xaraanta inaan arkaa laga yaaba ama aan fiirsado marka sidaa daraadeed xaggaas ilaahay baan ka cudubilaysanayaa ilaahay waxaan ka baryayaa iga madoobay qofba wuxuu ku leeyahay anigu waxaan ku ibtilaysanahay xantu oo xantu waxa weeye iskama qaban karo islaam wayila waan waxaan ku arkay wadamada waxa weeye arbeed markaas waxaan ku imaamahay ayadoo qabiil dhan haysato oo xamanaysa oo maama hadda soo xadiseen waxay tiri eeday kuwa qabiilka reer hebel sanad kasta ka soo xajiya waxay ka wadaa hadee ma daynayso mar kastaba way xamanaysaa qabyaaladii iyo qurunkii iyo wixii baa qalbigeeda ku jiro bal adiga qof xajinaya sanad kastoo ilaahay nicmadaas siiyey oo haddana aan ka tegaynin waa qof aan garanayn meeshuu u jilicsan yahay qof kastoo anaga naga mid ah dhinac buu u jilicsan yahay gabadha dhalinyarada ah meel bay u jilicsan tahay wiilka dhalinyarada meel buu u jilicsan yahay adigu marka waa inaad ogaataa shaydaanka meeshuu iga soo galaa shaydaanka halkaasuu iga soo galaa meeshuu kaa soo galo waa inaad ka cudubilaysataa waa inaad la dagaalantaa waa in alle subxaana wa tacaala ka baridaa inuu alle subxaana wa tacaala khayrka kugu sugo uu waxa weye iimaankaada sugo aliimaanu yaziidu wayanqus iimaanku wuu kobcaa wuuna nusqaamaa iimaanku meel ma taagnaado wuu kobcaa wuuna nusqaamaa maxaa nusqaamiyo maxaana kobciyo waxaa kobciyo dikrullah وحمده وتسبيحه فذلك زيادته سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر وكزيادة يا وإذا غفلنا وضيعنا لكن هذا ضيعناه أو أنه وحوي موغنانه أو قفك وهالمر حتى أوصل الله سبحانه وتعالى حسن قفك وحلغير الصبح إلا قبل إلى هبينك إنه مرنا أرن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر qofka inuu marna alle subxaana wa tacaala dembi dhaaf weydiisan astaqfirullah wa atuubu ilayh qofka inuu mar xataa intuu fariistay laba ragcadood oo sunno ah asagoo ilaahay ka baryayo inuu jidka toosan ku sugo inuu samayn baa laga yaabaa qofku wuxuu iskaga joogaa qaflad buu iskaga jiraa اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون وردك حسابتوضا أيا سودواتي أيقونا وحي كسغيهن غفلت أيا وحاو إسكاق جيران قفكو صوقع عيا ونسيحنا يا قبضوا ويصوقع عيسا وينسيحنا يسا غفلت بيكو جتا سيدو كان يرضى لكن ما هو إما لأن لقمان دون إلهي وحوليه وروحا سودوا الحساب تيني قيامة سودوا لوي هذه حتى قيامه سودوا لوي أذيكو قيريدا يا سودواتي ومن مات فقد قامت قيامته قفكي لنتنا قيامة دي سوى العبد هذه نفتو مات أنيقو إيقو الله أما أذيكو إيكاقو الله هذه قيامة الله بعد هو إله سبحانه وتعالى واحد حسابين علقم ابن قيس النخعي وحورا جل ولا ليال امشوا بنا نزداد إيمانا وكالي حوغا عوض الصعوني قلبتنا كينا حوغا عوض الصعوني إيمان كينا أنزياد سنو ضد وحاوي وناقر وحاوي إسرجعل ماشا كوة كالإليهين ما عندي حفلت بقى جرتو الفلان بقى إيمانايو فنانت بقى إيمانايسو حاران تكوة كالماشا اسكوه بشارين أيام إيو حمان تأينا السمايان كوان ددك أهل الإيمان كأه خير كأيغا وحاوي اسكوه بشارين أيام وركاليا أنه إيمان كينا أنزياد سنو هذا أركان قف حوغا حمان وضو أما وحاوي دب حوغا وضو وإلا الله يحدان ولا لي إلهي كبق تدكوها حمان ولا لي إلهي كبق وحنا سمين اسكعفي ولا شاء ولا لك عفي إلهي سبحانه وتعالى وكودا بالعافية إمام أحمد بن حنبل وحال ويدي إيمانك لويدي إيمانك مكبعها من نسقام بالويد وحذر يزيد حتى يبلغ أعلى السماوات السبع وينقص حتى يصير إلى أسفل السافلين السبع وحذر إيمانك وكبعها إلى كجار أعلى السماوات السبع سماوات كتضبط السماوات سمو تنقصر إلى كجار وينقصون نسقاما إلى كجار قل كماش وحسيسو تضبط قل تنقص إلى كجار آثارته
iyo axaadiista ku soo aroortay iyo saxaabada iyo nuquusha ka soo aroortay aad bay u tiro badan tahay culimada qaar waxaa laga soo wariyey waxay yidhahdeen falcabdu almu'minu almuwafaq laa yazaalu yascaa fii amrayn addoonka wanaagsan laba shay buu ku dadaalaa midda ugu horayso taxqiiqu aliimaan wa furuucihi waaltaxaquq bih iimaanka in la taxqiijiyo iimaanka iyo furuucdiisa iyo cilmi iyo camal waxaa maanta adigu cilmi ahaan u barato inaad ku camal faltaan loo baahan yahay inaad ku camal fasho ayaa loo baahan yahay arrinka labaad ay dadka ku dadaalaan waa assacyu fii dafci maa yunaafiiha wuxuu qofka ku dadaalayaa waxyaabaha ka hortagaya iimaankiisa waxyaabaha nusqaaminaya iimaankiisa waxyaabaha iimaankiisa dhulka la simayo ayuu qofka waxaa way ku dadaalayaa bal maxaa keena adigu ma isweydiisay qof wanaagsan gabar wanaagsan oo xijaabkeeda qaadato oo asturan oo wanaagsan ayaad arkaysaa laakiin markay timaado meel oo laga garanayn ama magaalo ka fog meeshii ama waxa weeye waddan ka fog markay tagto ayay xijaabkii tuuraysaa markaas waxa weeye tartiib ilaa maalinta dambe waxaa arkaysaa ayadoo soo dhigtay sawiro meelaha sawirada la soo dhigo oo xataa hal mara aan waxa weeye madaxa u saarnayn maba ahanba gabadhii xijaabka iyo qur-aanka soo xifdin jirtay waaba qof kaloo cusub maxaa ku dhacay gabadhan shalay xaafidatul qur'aan bay ahayd shalay waxay ahayd gabar aad u asturan maanta maxaa isbedelay maxaa ku dhacay oo xijaabkay u turtay iimaankeeda ayaa nusqaamay iimaankana markuu nusqaamayo ma aha inuu hal mar keliya intuu hal mar meeshuu taagnaa ka soo dhacmaa tartiib buu u nusqaamaa ilaa uu waxa weeye dhulka tago ilaa qofka waxa weeye laga waayaba wixii uu marka hore ku jiri jiray ilaa laga waayo marka walaalayaal ilaahay subxaana wa tacaala aan ka baqano waqtiga aad buu u gaaban yahay laakiin waxaanu rabnaa xoogaa inaanu ka hadalno asbaabu ziyaadati aliimaan wa quwatihi waanu fahnay iimaanka inuu ziyaado inuu kobco waxaanu fahnay sidoo kale iimaanka inuu nusqaamo marka tolow maxaa iimaanka kobciya waanu rabnaa qof kastoo annaga naga mid ah wuxuu doonayaa in iimaankiisa uu kobciyo maxaa marka iimaanka kobciyo maxaana nusqaamiyo kow waxyaabaha iimaanka kobciyo waxaa ka mid ah tacalumu alcilmi alsharci cilmiga sharciga in la barto kow cilmiga sharciga in la barto ina hada alqur'aana yahdii lilatii hiya aqwam afalaa yatadabbaruuna alqur'aana am calaa quluubin agfaaluha afalaa yatadabbaruuna alqur'aana walow kaana min cindi gayri illahi lawajaduu fiihi ikhtilaafan kaiira كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكروا أولو الألباب علمك إن لبرتنا وحاوه ريسو قرآنك على إن لم تدبره والقرآن كوحا لوسو دجي ما أحكلية إن قريها لصارت قرآنك مصحفك إن قريها أما قاريها أما شهر سارت أما قريها أد كشرح لو مسو دجي وحا لوسو دجي قرآنك إن لو عمل فلا إنها إن لو عمل في القرآن أو الله برته أو معانيه الله برته قرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى وكلها الله ماذا فهم يسكون مركز تفسير كيس إن أدري ستان قرآن كأسكود داشان قرآن وحاول تدبر كيس أدري وحاول كود داشان هذا حفظ لسان قرآن كأحاديث النبي نسيله كان مركز علمك إن برته وهو حيابها كبعية إيمانك أو واحد برنا يسار إن الله سبحانه وتعالى حقوقك قوليا إلهي وحيري إنما يخشى الله من عباده العلماء وحا إلهي انقبق العلماء كوا وكوا علمي له علمي ليهم وكوا الله سبحانه وتعالى وحو ربه يوحى أودي ذنيا هيكلا يقال كو من طلبات معرفة أسماء الله تعالى وصفاته العليا إلهي سبحانه وتعالى أسماء ليس مقعد ليس يتماميس إن لبرته قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى إلهي بريا أما رحمانك بريا إلهي سبحانه وتعالى وحا أسرنا ذي مقعيه ونكسن مقعيه الله سبحانه وتعالى وحبا ضبك فإنا إلهي الغفور وي وكان نافذ بضن ودنبك نافذ الرحيم وي وكان نحريس بضن
الصبور وي وكان صديق بدن الله سبحانه وتعالى الشكور وي وكان الله سبحانه وتعالى شكري بدن أو مركز عمل يرسميسو عمل كادو كوكب عيا الله سبحانه وتعالى وكوبضيا بل أديك وفيرسو إلهي يحكوي حداد أخرس هل حرف طبعا ليلة هل حرف قرآن كتبك أخرسه طبعا درجة ليلة منا أهضو النبي ألف لام ميم حرف معه ألف حرف ولام حرف وميم حرف بل هل كالصدر أو قرآنك ميقا حرف با كجتو طبعا حرف قصو صار هذا طبعا حرف تاعي كسو قاد طبعا حرف وبقول أجر إن الأخرس طبعا حرف وميقا وحقوقها نساء دقيقة معه ونص دقيقة معه وطبعا سكن كلية طبعا سكن بوحقوها ليس بقول درجة لكن دنبي كستعاد سميسو هل دنبي الوقرايا كور مركا مالنت قيامة ذيقو هادو دنبي هذا وكبتو أجر كذا دو كبتو وحتى يقف دنبي لأه هو الله سبحانه وتعالى أن بعابد با وايو هدي الله سبحانه وتعالى أكوف ذي ميلها خير كاه إيو وناغا إيو إنا ألسو بريدو إيو إنا خير سميسو أو لغول باللابي oo 10 lagu labalaabi iyo 20 iyo 30 ilaa 700 laga gaaro oo wax xumaanta markaad samaysana hal kaliya lagu qorayo maxaa ku diilay in aad ku dadaasho wanaag waqti yar aad geliso si Allah subhanahu wa ta'ala uu naxariisto adigana طيب ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها كبريه مك الله سبحانه وتعالى magacyada wanaagsan Allah subhanahu wa ta'ala kubariya ilaahu adaa ghafuura noo dambi dhaaf إله أدوى رحيم إنه نحريص إله أدوى صبور صبر كي قبضي إله أدوى شكور وانكو مهدي مركو إلهي أسماء ذي سكبر يا أيها الله سبحانه وتعالى التأمل في سيرة النبي وحيامها إيمانك كبعية وحكم قفك إنه كنت أمله سيرة لنبي صلوات ربي والسلام عليه نبي السيرة دي سب إنه أخريه أو حاوي وحي النبي كسو قاري إنه وحبضا كبرته سيدا النبي صلوات ربي والسلام عليه أحكامت عن أغبر لينا إيا وحيابها كذا أيها اللو باهيها إن أن أغبر النبي صلوات ربي والسلام عليه سيردي سيئة لقم كيسا وحوش سنين جري مركو صوقع قري كيسا مركو صعود النبي صلوات ربي والسلام عليه درس كسوء لتعامل جري تدك وحوي قرابة دي ساعة تدك كواوين نبي وحوها من حريص بضن adigu marka waxay ku tusaysaa iimaankaada kobcinaysa markaad aragto nolosha nabiga sallallahu rabbi wa salaam alayhi u kunola waxyaabaha la yaab kale waxa weeye Aisha radiyallahu anha waxay leedahay nabiga sallallahu rabbi wa salaam alayhi yani guriga nabiga mar waxaan soo mari jirtay bil ama 2 bilood anagoo kaliya heesano timir iyo biyo xoolo kale aan bahaysanba timir iyo biyo kaliya laga cunayo وحكى الأنيسة هذا هو قولي النبي صلى الله عليه وسلم عليه كورما مرمرنا النبي انتو يما قولي جيسا أيوح أورنجري وما أنت قرآن متعالى قصة أورنجري ما يقرآن متعالى وبرقضي مركز سعودي جري إني صائم أنه هو صومنا كورما برنين صوماني ما أنت ساكا صدو يمي وقرآن صوت انتو قرآن متعالى يا قولي وروحا ولك كعين لها صوما لكن النبي ما أوران حاقر على السمين واي بريا مانك سبيل وان كينا بيل كشلة أن كانوا قرنون الماضي ما بقى قايدين بقى وحير قرأ متى على صومه إذا ما أنت أنا جوان صومنا وليستي النبي مكة أرت رسول كهذا صلوات ربي والسلام عليه وحبيبك أها ودين أنت لسه جاري هذه نوش سيدا تاي أذكر والصبر سا أذكر إيمان كذا كبعايو واحد أغاني سأدون كان إنه مال ميه waxa ogaanaysa in lagu talagalay aakhirina joogto waxa ogaanaysa in adduunka musaafir aad tahay oo dadku dhanna ay socdaan adiguna berin aad ka soconayso taas ogaanaysa tayib mid saddexaad waa macrifatu maxaasin ad-diin inaad barato diinta wanaageeda اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ما أنت وحوليها هي الله دينتينا وإنين لم يسترق نعموين كينو دن واني قدام يالي ورضيت لكم الإسلام دينا وحان إنقر الله أهالي دين الإسلام كإن الدين ذي أهاتو
ilaahaygiina khalqay ayaa noo doortay diinta ilaahaygiina khalqay ayaa wuxuuna siiyey nicmooyinka nicmada diinta nicmo ka weyn ma lah adigu wax kastuu alle subxaanahu wa tacaala ku amro waa khayr wax kastuu kaa reebana waa xumaan u fiirso haddii aad gasho waddada xumaanta ah oo ilaahay subxaanahu wa tacaala waddadiisa ka leexato dhib baa kuu dambeeya xumaan baa kuu dambayso qaxar iyo stress iyo buufis unbaa ka qaadi weligaaba wanaag ka qaadi maysid xaaraantu inaad iska ilaalisaa loo baahan yahay waayo badbaadadaada ku jirto adduun iyo aakhiraba waxaa ku badbaadaysaa khayrka intaa xijaabkaada xiran tahay intaa wanaagaada ku jirto intaa masaajidka soo xaadirayso intaa khayrka ku jirto intaa dadka wax u qabanaysid oo qalbigaada uu waasic yahay ilaahayna wax badan buu ku siinoo khayr badan qalbiga waxaa loo baahaya in waasic laga dhigo walaaltinimada waxaa weeye lasdareensiiyo masaajid baan ku jirnaa saan baan hadda waxaa walaalo una markaan banaanka u baxno reer hebel iyo reer hebel loo kala baxay islaamnimo miya ya ma islaamnima markii aan meelo kale u baxno waxaa leeyahay reer hebel iyo reer hebel laakiin dadku waa muslimiin waa isku dhaqan waa isku dad marka waxaa loo baahaya qalbiga in la waasiciyo nebiga waa la weydiiyey waxaa la yidhi man khayru nnaas nebi allow saxaabadu waxay weydiin jireen su-aalaha ugu wanaagsan bay weydiin jireen waxay yidhahdeen nebi allow dadka yaa ugu fiican yaa ugu khayr badan nebigu wuxuu yidhi khayru nnaas dulqalbi almakhmuum qalbi almakhmuumka ah ayaa ugu fiican waa kee bay yidhahdeen alladii laa gilla fiihi walaa xasada walaa isma walaa baq waa qalbiga aan xiqdi lahayn oo aan dembi lahayn oo aan xasad lahayn oo aan gardaro lahayn oo dadka aan gardaraysan yacni waa qalbi saafi ah oo dadka khayr la jecel waa maqasheen hebel waa nin qalbi wanaagsan hilaayo waa gabar waa mu'minad bay leeyihin dadku waa maxaa dhacay waa qof qalbi wanaagsan baa lagu leeyahay qalbiga wanaagsan wuxuu keenayaa dadka kale inaad khayrka la jeclaato qalbiga wanaagsan wuxuu keenayaa dad kale inaad u dhowaato qalbiga wanaagsan wuxuu keenayaa muslimiintao dhan inay kuu siban yihiin ina adeertaa iyo tan kaleba inay kuu siban yihiin walaalkaa iyo ka kale inay kuu siban yihiin dadkoo dhan inay hal kuu yihiin qalbiga wanaagsan baa keenaya laakiin qalbiga wanaagsan wuxuu u baahan yahay in la kobciyo u baahan yahay maxaa lagu fahmayaa maxaasinu diin diintan inay tahay diinta ugu wanaagsan in la raaca ay tahay iimaanka ay kubcisaa siirada in la akhriyo dadka wanaagsanaa oonan soo dhaafnayn dadkii naga horeeyey asxaabta taabiciyaadkii gabdhihii saxaabada ahaa caaisha iyo zaynab iyo keyrkood noloshooda in la akhriyo saxaabiyada abubakar iyo cumar iyo keyrkiisa see u noolaan jireen inaanu akhrino iyo dadkii naga horeeyey annagu odayaasheenii awoyaasheenii dad badanoo waxaa ku jiray islaam aan wanaagsan ahaa oo masaajida ku jiri jiray oo dadka khayrka u horseedi jiray dadkaana waxaa loo baahanya taariikhdooda in la akhriyo sidoo kale waxyaabaha kobciyey iimaanka waxaa ka mid ah aayaatullahi kowniya kownkan alle subxaana wa tacaala inaad egtaan oo waxaa ku tadabburtaan ina fii khalqi الsamaawaati wاlأrض waاkhtilaafi اlleyli wالnahaari laaayaati liuli اlalbaab aladiina yadkuruuna allaha qiyaama waqcuuda wcalى junuubihim ina fii khalqi الsamaawaati wاlarضi waاkhtilaafi اlleyl khalqiga samaawaadka iyo dhulka iyo habeenka iyo maalinta iyo subaxa iyo galabta iyo dhirta iyo buuraha waxaasoo dhan markaad aragto oo aad fiiriso iimaanka ku ziyaada yaa abuuray adduunkan yaa maamula qoraxdu waa sii dhacaysaa waxba dareemi mayno saakan waan soo kacnay qorax baa soo baxday roob baa soo da-ay mirihii baan helaynaa risqii baan helaynaa waxaasoo dhan miyaanan ku tadabburin in lagu tadabbura loo baahanya yaa waxaasoo dhan khalqi ilaahay subxana wa tacala baa khalqi marka wuxuu u baahan yahay qofka mu'minka ah inuu ku tadabburo war yaa waxaan isiiyey war yaa khayrkaan sameeya yaa adduunkan dadkaan arsuqo wamaa min daabatin fi lardi ilaa cala allahi risquha wayaclamu mustaqaraha wamustawdacaha daaba ma jirto ilaa qof wax dhulka ku socdo ma jiraan ilaa alle subxaana wa tacaala wuxuu og yahay risqigeeda asagaa hayo iyo meesha ay ku nasanayso iyo socodkeeda ilaahay baa hayo wax xoolo ah waxa ordaayo waxa weeye buubaayo kulli ilaahay subxana wa tacaala ee arsuqo waa iimaan
قفك وحوى إنه تهدريمه لكن يا دريمايو وقف قلبي سوجد حق الله سبحانه وتعالى طاعة الله وامتثال أمره إلهي إلا أدعه وأمر كيسنا وحاول راعه ووحيابها إيمانكم عيوي إلهي إلا أدعه ولا قد ذاله عباداتك الصلاة صومك لو قد ذاله زكاة لو قد ذاله صدقة لو قد ذاله تسبيح لو قد ذاله ذكري لو قد ذاله قرآنك لو قد ذاله خيرك لو قد ذاله أعماشنا وحي أقيب سمان صدح لأقيب سمان أعمال القلب أعمال قلبي لغسمين مثل الخوف والرجاء والحب والخشية جعلك على جعلنا يا رسول كيسا خشية على بقايا الإنابة حق على إنه لو نقضه التوكل إن الله سبحانه وتعالى تلسارته ما أنت تذكر وحي تلسارنا يا تذكر تلسارنا يا وحلوبها هي ولا ليال إن أنا تلسارنا الله سبحانه وتعالى التوكل على الله يا ومن يتوكل على الله فهو حسبه قفكي الله تلسارته أسرع خوفيا أنت بني آدم قاعد سنيسو بني آدم عاد بريسو بني آدم عاد أمليسو نرشاو ضمبا إنه قعنت كهيو إلهي سبحانه وتعالى هذيك وصوكا الله ديك صايه سيقاد الله وان حنوصنه وحنونك يقاد الله وحوي عروت هجاجي الله وحوي مرادك ساليه إيسا الله إلهي بري إلهي وقسم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان مرك أعمال القلب قلبي أعماشي سوحوي إن إلهي لقبق وحوي لو دلاله إلهي قلبي أظن إنه وناجيه إن إلهي كبره وحصلك الأعماشة كمل أعمال اللسان وحيابها أنا عرب مخبرته أي تهي تسبيح لإيه قرآن كإيه تحميد إيه حيابك أعمال الجوارح جوارح هذا يحبنا هذا وحيابها أي قبل كران إن وحاولك أصاب وقته درسك إن هجاجسه صلاة إن كود دايشه إن وحاول صونته وحصل وحاول خير كلو باهيه السنين تي خميسته تكو حاول قبلها إسلام دجن ودرسك أما رجل سوق بيانا إن إسحسوسيا والبليوة خميسة أول صون كدمنا أفرك هبلاين السبوس كسوق كرسو هبلاين وحاول حولا وحيابه كلا سوق كرسو كدمنا وحاول سكوي ما ضر ضمان وحاوية تذكروا أي قريب سكوي ماذان ضد إسجعل ولا أفرايو خيرك ولا شقينايو إيمان كودا سيدا كوبعايو إيمان كودا أيا كوبعايو طيب وحسنك ولا كمل وحيابها إيمانك كوبعينايو تذكو إن السنة حريستان وقفك أو يقين سره إن وأصعد حق الله كان وزيادة هذه أي أداء أولاده إن مسافر تهي إيمانك ذو زيادة لكن بك وحو كجرا هذا بأغانين با إيمانك أدون كان أجوكتو إن المسافر أهان وأذيك أدوه وهستو إن الوليغا جوي إن الوليغا وحاوي دقنان تاسا مصيبتك ولا ليال إلهي سبحانه وتعالى أن كبقنا حقي سأن أصنقنا وحيابها إيمان كينا وحاوي كبعنا ينا أكد دالنا قيبتي لما أضع هانت أراد عينا وإهاد ونفهمني وحيابها إيمانك كبعيه ترى محا إيمانك هاصل ديو إيمانك محا هاصل ديو كو محانو نبي مركب وقوه سبحانه لي إيمانك وحا كبعيه علمي أيامي وحا إيمانك هوس وداد عيانا وحا هو وجهل قفك إنه جهل وحا وإسكال الصنع قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون موسى الحبير هذه ذاتكي مكي مسلمين أو مسرع بوحي الصومرين ذات نجح يوح عابدين مركز يحيي موسى kuwaaba ilaahay bay leeyihiin waxbay samaysteen anagana ilaahay noo sameey maba ahanba dadkii lagu yiri ilaahay ka baqo ilaahay baa caabudayna maxaa u geeyay jahli baa u geeyay haddii aadan cilmi lahayn waxaa noqonaysaa geed aan asal lahaynoo meel ugu qotoma aan lahayn dabeeshii timaadaa kaxaynayso jahliga wuxuu keenayaa qofka inuu diintiisa ka tago jahli wuxuu keenayaa qofka inuu diinta iskaga baxo jahli wuxuu keenayaa qofka inuu shirki ku dhaco xanuun baa cunug baa dhashay xanuun baa ka bixi waayey qof baa ku yimi wuxuu ku yidhi war haddaad waxaa weeye heblaayo u tagto waxoogaa bay ku akrinaysaayo
xirsiba inta gacanta loogu xirayaayo cunugaado wax dambe ma arkaayo oo maxaa kicinaya xanuunka bise xanuunka bahalka gacanta ugu xiran baa wax kasta ku jiraan wareelantan oo kale marunta baha waa loogu xirayaa khalaas ilaahayna waa ku ibtileynaya qofkaasoo cunugi waa bogsoonaya markaasuu qofku wuxuu leeyahay cunugayga waxa bogsiiyey xariga gacanta ugu xiran waa shirki marka jahliga diinta adoo u haysto inaad ku jirto ba waxa laga yaabaa inaad ka baxdo waxyaabaha aad la imaanayso shirkiga diintu waxay u baahan tahay barasho waxay u baahan tahay in la raaco waxay u baahan tahay wixii qofkii uusan garanayn inuu culimada weydiiyo oo markastaba dhinaca culimada ka agdhowaado uu diintii ka agdhowaado ayaa loo baahan yahay haddii aan noqono dad aan cilmi lahayn waxay imaanaysaa waxay noo keenaysaa jahli inaan ku dhacno waxayna jahligaas haddaan ku dhacnona waxaanu ka tegaynaa diinta ama iimaankeena ayaanu isqaamayo ayib wuxuu yidhi waa tii ibraahim uu yidhi qul afa gayra allahi ta'muruunii acbudu ayuha aljaahiluun war kuwiina jaahiliinta ah ma waxaad i amraysaan ilaahay kayrkii inaan caabudi maayo weeye waxaa ka mid waxyaabaha qofka nusqaamiya cibaadadiisa ama iimaankiisa waxyaabaha nusqaamiya waxaa ka mid ah alghafladu wa ina kaiira min annaasi can aayaatina lagaafiluun ilaahay wuxuu yidhi dadka badankood can aayaatina aayaadkanaga lagaafiluuna kuwa moogan weeye yaclamuuna daahiran min alxayaati addunya wahum can alaakhirati hum gaafiluun buu yidhi alle subxana wa tacaala wax badan ayay garanayaan oo adduunka waxyaabaha ka muuqdo kore ayay garanayaan wahum can alaakhirati hum gaafiluun aakhirana way moogan yihiin garan maayaan aakhiro gafla ayay iskaga jiraan gafladu waxa weeye qofka inuu u haystaba inuusan dhimanayn tuululamal qofka inuu markasta yiiladiiladiisa ee aad u dheeraato uu u haystaba adduunkan dhimashada dadka kalaa lagu qoray maalin kasta waxaad maqlaysaa hebel baa dhintay ilaahay ha u naxariisto hebel ayaa dhimatay ilaahay ha u naxariisto adigoo dadkaa yaryar marmar ama aada isla egtihiin waxaad u haysataa adigu geerida in lagugu talagelin weli waqti aad haysto markaad weynaato 70 aad gaarto waxaa leedahay ayeeday hataa waxaa laga soo sheegay oo fulaan ah 90 inay gaarto marka aniguna waxaa u maleyn 90 inaan gaarido weligaaba waxa weeye waqti kasta aad haysto waqti ku darsanaysaa haddii 20 jir aad tahay waxaa leedahay yaa isgaaray insha Allah mar dambaan waxa way toobad keeni doonaa laakiin meeqaatigii 20 jir meeqaatigii 30 jir ilaaha noo dambi dhaaf yaa marka غفلته أن كجنا أن ككعم ورهوي والس حسابين دونا ورهوي ولا الصعداء وأدونك ولا جت جاية غفلته وحي كنيسة إيمان كان إنه هاسقا وقلنا سيدا دراد وحل وجبها هي إن الاستحسابين إن الاستحسابين حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا والاستحسابية يجي عمر بن الخطاب أنت الذي حساب بري والاستحسابين إلهي سبحانه وتعالى هرتي برسول استاجي كل أحد قف قصد إلهي بور استاجي وكلهم آتيه يوم القيامة فردا قف قصد وحوهر إيمان إلهي سبحانه وتعالى كلي نبي ليس بينه وبين الله ترجمان قف قصد إلهي بور استاجي السجا إلهي وحد ترجمان ومن حياة بركو غفلته أنا إسك إلهنا وحيابها إيمان كسرك الهوس وليه وحكمد الإعراب قفك إنه جيستو ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون كو كجيستو وحوي ذكري الله سبحانه وتعالى محاضرة جيستو إن شاء الله وكسو قاري دونا نوسو لغيست إذن كان ذي حصارنا يبالي موت وجيس جيس وحالو جيس جيس موت دينته ويكل حنايا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه يا كظلم بذنب الليل قفل حسوسي آيات قال الله سبحانه وتعالى ثم أعرض عنها كذب لك كجيستي مركي لحسوسي كذب إنا من المجرمين منتقمون إلهي وحي أنه كو مجرمين تأه وانك أرسن دوننا وحيالها السيدو كالي ووحاوي كان إن قفك إيمان كيسا هوس أدعو
النسيان هلمان كمد ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم هنقنين قوة الله سبحانه وتعالى هلمامي أو فأنساهم أنفسهم إلهينا أيغو ويسممسي إلهي به المامين أيغونا واسدا واله الممسي أو وح أي كجران يوح كلا ما كلا قرنايا قفكو وصوكا يا وسحنا يا وعبا يا وسحنا ده انت هذا حولها ويسميان حولها ويصوكعان ويسحران عنت عنان ولا وحوي ولا فوفيا ولا صحريا أنا أقول مرك حوله مني هذه لكن جدك الله أنا قبصا حولها أن قلنا أكله إلهي وحيري إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل كواسي وحيلمديهن سيدا حولها أكله وكوا الله سبحانه وتعالى أن عابدين وكوا دينت أو حوي أن الله سبحانه وتعالى دينتي سراعي كواسي وحولها أكله نقنايا marka النسيان hilmaamka badan oo diinta la iska hilmaamayo oo khayrka la hilmaamayo oo qofka xumaanta uu ku jirayo waxay keenaan qofka in iimaankiisa uu nusqaamo waxyaabaha keenna qofka iimaankiisa inuu nusqaamaan ficlu al-macaasi wa irtikaab al-dhunub macaasida in lagu dhaco qofka dambiga inuu u noqdo wax caadi ah dambiga inuu iskaga dhaco ay caadi u noqoto kullu ibn aadam khata' wa khayru khata'ina tawwabun بلا آدم كستوا قفا لكن كوا ونكسن وكوا توبت كينه وكوا الله سبحانه وتعالى حقي سوى الله كوا سالوبا هي قفك إنه مركز تبى دنبي وقنعه إنه حق الله ونقضه دنبي قفك وكدع كرا قفك وبلا آدم وحوا كدع كرا قلبي سما مر وحوا يحوغا ضعف باكو إيمان كرا لكن حالوبا هي إن حق الله ونقضه الله سبحانه وتعالى مركوت الماما يدكوا ونكسن وحيليه وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وحد أدلدكتان إلى مغفرة من ربكم من أفحق ربنا كأحاب وجنة يجنة عرضها السماوات والأرض بلا عيدة سماوات كي يعرضها أي أحد أعدت للمتقين وحلو دياري للمتقين قوة لك عصبه الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين آيات كحج الله وحيري متقين تي أيو صفينا يا أوتي ماما يا وحيري والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم وكوا إذا فعلوا فاحشة مكة حمان أي سميان ومتقين لكن حمان بكد على أو ظلموا أنفسهم أما من في القوضة إذونيان ذكروا الله ألا أي حصان واستغفروا لذنوبهم ذنب قوضنا وحاوي ألا ذنب داف ويديستان ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون من أكو أتكستان وحي أي سمينا ين ذنب كدع كوكو أتكستان معه حق ألا أصول قناي إله حل ذنب ما يقدع إله إذن بداف إله وحاوي وان ترى الحي إله إذن بداف إله حق يعني waa kuwa xaq Allah u soo noqonayo marka dambiga haduu ka dhaco oo dambiga markasta uu bato iimaankaada inuu isqaamayo bas nabi sallallahu alayhi wa sallam qasugan sallallahu alayhi wa sallam alayhi inuu yiri inna al-'abda idha akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuqtatun sawda qofka adoonka haduu dambi sameeyo qalbigiisa waxa lagu dhibciyaa hal dhibic madow fa idha huwa naza'a wastaghfara wa taaba hadduu dambigaas ka baxo oo ilaahay dambi dhaaf weydiisto oo ilaahay waxa uu toobad keeno waa la xaway waa laga qaadi suqila qalbuhu qalbigiisa laga tirtiri dambigi wa in aada hadii laakiin waxa uu ku noqdo ziida hadduu ku noqdo dambigi dhibic baa ku dhacday dhibic labaad baa ku dhici dhibic labaad baa ku dhici ilaa qalbiga uu madoowaado qalbiga markuu madoowaado maxaa dhici uu xirmaya إلهي وحيري كذب أخي نبيك كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا ما أهل بل ران على قلوبهم قلوب تضوحها الضبول يحري ما كانوا يكسبون وحي أهابين وحي كوي كسبنا يعني وحي كسب الجرين كسبهم أي وحي أي سميين وعمل أي لا إمادين أي قلوب تضوح حرنت قفبا وحا أركسا دلبيتو لا إماده xumaanta uu sameeyo
سكستو خير كلو الشيء خير قل ماي سكستو لو إلهي كبق قل ماي محادعي قلبي سوا محرم نعوذ بالله محب حرم قلبي ما نكستو ذنب السوء سمينين وإلهي سبحانه وتعالى وسن وحاول أتوبت كينين ذنب الله فأن أودي سنة الله سبحانه وتعالى ما قلبي صلى الله عليه وسلم مركي إلهي سبحانه وتعالى قواسا نغا إلى اليوم هنغدي كوا الله سبحانه وتعالى توبت كينا روض قضب أن قصر بجوينة وحكمدة وحيابها كان إيمانك إنه نسقامه النفس الأمارة بالسوء نفط حمات بالكفرت نفط هذا أذيك قلبك هذا كجرت حمات كفريسا وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء marka waxa u baahannahay naftu inaan la dagaalano naftu waxay rabtaa waxyaabaha raaxada ah naftu waxay diidaysaa salaada subax inay waqti fiican soo kacdo naftu waxay diidaysaa khayrka inuu soo kacdo marka nafta inaan la dagaalano u baahannahay oo aan dadaalno oo quraan akhriska aan barno oo istighfaarta aan barno wax badan inaan la dagaalano u baahannahay nafta sidoo kale waxyaabaha nusqaamiya iimaanka waxa kamid ah shaydaanka kamid ah shaydaanku inna shaytaana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwan inma yad'u hizbahu liyakunu min ashabi as-sa'ir wuxuu doonayaa shaydaanku inuu anagu waxa weeye cadow buu yahay shaydaanku wuxuu doonayaa inuu naarta kugu hubsado ka tagi maayo ilaa naarta uu kugu hubsado xumaan kastu ku faraya wax kastu ku faraya xijaabkaada marrabo khayrkaada marrabo wanaagaada marrabo dadka kala aad caawinaysid iyo meelaha kale ugu tagaysid iyo qaraabada iyo marrabo wuxuu rabaa inuu meel kugu xirto kadibna xumaanta aad farto marka la dagaalan shaydaanka ha ogolaan inuu iimaankaada kaa qaado ha ogolaan in waxa weeye aad noqoto mid shaydaanku ka talbadiyey qalbigaaga jilci ilaahay xaggiisa u noqo tusbaxaada qaado ilaahay bari waxa weeye dikriga la imow meelaha quraanka lagu hay ku dadaal shaydaankana iska ilaali مركزتنا أعوذ بالله أذكرت مركز سوريا جلسي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم إني أعوذ من الخبث والخبائث شيطان كسكنار مركز سيحنيسي أذكرت هاي سوكا غفر هذا قفكي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير بقول جا قفكي ما ننتي قفك الشيطان كما كفر هذا ومن السود هذا أجر بظن إله سبحانه وتعالى وأقرأ أنت سينقص بقبيلنا إن شاء الله تعالى waxyaabo badan oo ku nusqaamay iimaanka waa jira laakiin waqtiga waxa weeyar ayaanu intaas ku soo gabagabeynaa aad baad u mahadsantihiin sida aad wanaagsan aad noo dhegaysateen wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh